iyo xusameeyay kala duwan yihiin maantana dawladani waxay tusaysaa waa dawlad campaign doorasho sidii berigii riyaal u dambeysay uu sameeyay gobolada kale uu sameeyay wasiirada ciida ka badan waa mid la leeyahay dan laga leeyahay oo siyaasad iyo istiraatiijiyad leh maaha waa mid lagu talageliyo doorashada soo socota oo waqti dhacaysa baan la gelin Allah yaclam sida dhacayso si xaaladda ku mid yahay maanta waxaad arkaysaa nin qof haysta 200,000 oo le wariya fiisayga iibinaya inta waxa qaatay just to go hata maanta qoyska dadku taageen jabku badda iyo saxraga isku tuuray marka dalkani wasiiriye hebel ku bedel hadi hebel ka bedel wax ka badan buu baahan yahay taasna insha Allah taala wala gariye taladeed telefishinka caalamiga Home Cable TV oo wax ka weydiiyay gudoomiyaha xisbiga Wacdi Injineer Faysal Cali Waraabe kulan ay saddex xisbi qareen la yeesheen komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in kulankaas laga wada hadlayay sidii loo sameyn lahaa diiwaangelin lagu galo doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtooyada Soomaaliland ee soo socda waxa weeye dalkan way ogtiro in baarlamaankeena uu baabay oo ma shaqeynayo sharcina kuma fadhiyo guurtidu way baabaaday sharcina kuma fadhiyo wixii aynu ku faani jirnay ee ha doorashaan qabanaana doorashadii ay qabatay dawladdan waxay doorashooyinka baabisay xiisihii iyo magaalada kalsoonida doorashada lagu qabay taasa baabisay diiwaangelin batariya lagu gelinayo marka in loo gala xaraan bay marka international community waxay yiraahdeen warweydii baabiyay voter registration kii hore mid kale idin qaban mayne waxaan idin qabanay civil registration wax leeyahay lana way ogyihiin dadkii baabiyay doorashadii hore 3 milyan adduunka laga keenay baabiyay maanta dawladda meel sare ka jiraan ragga u bareeray ka jooga maanta talada dalka gacanta ku haya taasina markaan doonay anaga commissionka wasaaradda arrimaha gudaha iyo magaalada saayay saddexda xusba inaan anaga cod midaysan baahideyna ma hayna inaga baahideyna layna dusha naga keeno waynu baahideen sheegana iyo waxa noo heli kartaa noo sheega lacagta laakiin anaga ha noo yeerinina anaga garanayna si wax nagu hagaagayaan baa taasaan ku jirnaa siyaasadaan shirnawada dawladda isbedeshay waxaan jecelahay in mowqif midaysan aan ka noqono